وهاجا daawadayaal markana xiriyaha qaxoontiga ee dhadhaab sanadan aan ku guda jirno dabiicaqadeeda ee 2020 waxa ka dhacay xiriyaha qaxoontiga ee dhadhaab ku dhawaada 3 fal oo dil ah kuwaas oo ay isu geysanayeen dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan xiriyaha qaxoontiga ee dhadhaab gaar ahaan dhalinyarada sportiska ama base ciyaaraha kala duwan deegaanadaasi ku ciyaara iyagoo markaasi kooxo kala duwan isu kala qaybinaya وكان بشير جاحنوق أو كسوغن حريها قحنتي قرداب وربحنتنا إنه قصو دري إساقا إنو فافاهينيا إنو نادم يستردون iyadoo muddooyinkii u dambeeyay xeryaha dhadhaab ay ku soo badanayeen faldambiyeedyo dilal oo la xidhiidha ciyaarta kubadda cagta ayaa arrinkaas waxaa si kulul uga hadlay laamaha amniga ee dalkan Kenya wuxuuna Dioga Charachila Faarax Xasan oo fadhigiisu yahay deegaanka Caleen Juqur uu sheegay inaysan u dulqaadan doonin falalkan dilalka ee la xidhiidha ciyaarta kubadda cagta arrimo ayaan dhaweeta dhicinaya jireen oo xagga security iyo amniga wax u dhimay arintaas waxay ahayd dhalinyaro kubad ciyaarayso ayaa dil isku geysteen kubadii ay ku ciyaarayeen markii ugu horeysay mooho marba ay dhacday mar labaad ay dhacday ilaa iyo mar saddexaad bay gartay heer dhalinyarada waxay gareen markii ay laba team ama laba koox ciyaarayeen inay crude weapons waxyaalo la dhaha ama bilaabo iyo waxyaalo qatar geysana inay garoomada liimaadaan ciyaartii kooxda qaarkeed markii laga badiyana ay dagaal meeshii uu ka bilowdo dagaalkaas oo geystay dil anaka dadka officials ka hay oo security iyo amniga u xil saarnaa ereyagan ma nugulin in muddo waxyar markii la joogaba ay dhalinyaro isku disho kubadda raadada ay isku disho kubadda ma noor taagnin anaga kubadda waxa way wax loo baahan yahay social activity fiican dhalinyarada waa inay ciyaaraan waqtigoodii nafaaska ay leeyihiin ay kubadda ciyaaraan waayo haday suubin waayaan drugs iyo waxyaalo kale iyo loo baahnayn bay gacmaha la galayeen laakiin taxadir waxaan leenahay kubadda meel walba baa laga dhelaa laakiin arrimahan foosho xun kama dhacda meel walba sababta ay ugu dhacayso dhulkan refugeeska badan oo degan yahay oo dhalinyaro maalin walba isku gudilayso baaritaan culus ayaan ku subinaynaa wax sababayo Diogo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi uma dulqaadan doona dil dambe oo la xiriira ciyaarta kubadda cagta oo sida aan wada ognahay ka dhigan nabadgelyo iyo isdhexgal bulsho wuxuuna xusay inay jiraan 3 fal dambi oo dhacay sanadkan 2020 wuxuuna sheegay inay sameyn doonaan baaritaano dheeraad ah oo la xiriira dhacdooyinkaas sanadkan kale 3 qasidood oo inkaas ayaa dhacday oo dhalinyarada dil isu geysteen mar waxaa jirtay toori lagu dhuftay in dhalinyaro uu meesha ku dhintay tii ugu dambeysay bud ayaa la isticmaalay iyo bir alwaax wadato asagana sadugtihiin banankii dhalinyarada ahaa asagana meesha buu ku dhintay isbitaalka Nairobi baa loo qaaday laakiin markii dambana wuu geeriyooday marka waxyaalahaas goroomaha la imaadayo ma nugulin dawlad ma ogolo dawladda ma ogolo kobahiisa iyo uniformkiisa hal imaada ninkii in aan bir ciyaaro marka anakana waan wareeganaynaa as the security officials ama dadka security u xil saarnaa hadii jeer inaan goroomaha ku wareegano isku dayayna ninka dhalinyaro oo garoonka kubadda lagu ciyaarayo bilaabo iyo bud iyo waxyaalo aan loo baahnayn meeshii la imaado tilaaba sharci baan ka qaadaynaa asagii oo ku qorayna inuu wax dilo inuu rabay bala dacweyni tilaaba sharci laga qaaday dhanka kalena waxay dhibaatadani saameysay dhalinta kuwooda ciyaaro kubadda cagta waxayna haatan walaac ka muujiyeen sida xaalku yahay oo ah mid aan wanaagsanayn waxayna dhankooda dhaliil u xambaariyeen guddiga sportiska oo sida ay sheegeen aan xil badan iska saarin dhacdooyinkan soo noqnoqday
magacaygu waa Fuad Olympic waxaan ahay coachka Al-Mansour waxaan ka hadlayaa saameynta iyo waxyeelada hadda banoonta dhalinyarta banoonta saameyn badan ay jirto oo ay ka mid tahay dilka oo zaad u soo kordhay sanadihii hore almost hadda san qiyaasayo 3-4 sano u dambeysay 3 dil baa dhacay intii ka horeysay mana garan karaa ma xusuustay in dil dhacay noocaas oo kale taa oo kubad macnaha arrin ka imaatay laakiin waa la isfeeri jiray waa la dagaal jiray waa kala socon jiray laakiin dil wax gaaro waxaan qiyaasay 4-3 sano ugu dambeysay in wax dil dhacay oo 3 dil waliba dhaceen oo dad muhiim ay naga dhinteen oo ugu dambeysay walaalka Najax oo garoonkan tiimkii ku ciyaaray kamid ahaa dadka waxaan kula talinayaa dhalinyarta inay garoonka nabad ku imaadaan nabad ku ciyaaraan ku kala tagaan haday noqon weydo inay kubadda iska daan kubadda waxa loogu talagalay nabad in isugu imaadaan danta guud ee loogu imaado waa isdhexgalka bulshada waxaan kaloo u jeedinayaa guddiga sportka dhaliishiisa way badan tahay markastaan dhaliishiisa waa dhaliil la'aan ma jirto nin Soomaali waxay dhahdeen nin xil qaaday eed qaay laakiin gaabis waxaa jira dhalinyarta dhinaceeda gaabisa ka jiro dhinaca sport gaabisa ka jiro dhinacii hay'adda fanka iyo mashaariicdana waxaa ka jira gaabis waan ognahay in loogu talagalay budget iyo wax dhalinyarta lagu mashquuliyo Allah ka dhiga boqolkiiba 5 waa loogu talagalay hadeen ka badnayn in lagu fangareeyo because hadii ilmahan loo qabto liigagoodii waxaan aaminsanahay inay kubadda xiisayn lahaayeen interest gareyn lahaayeen kubaddan ay muhiimad siin lahaayeen inay ciyaaraan waa aniga Cabdisalaam Umar Hussein Xaaji Cabdisalaam ku magac dheer waagi hore tabaloonteena anaga wax iska ahayd waa dad isgaranay waa la isdagaali jiray garoonka ku dhamaan jirtay wax balooda la mal jirin laakiin baloodan hadda saana ilma yar iyo nin weynba wada balwada muqaadaraadkan waxaan ma jirin garoonka Al-Aqsa waxa ku dhintay nin aad u qiimo badnay oo kabtanka Al-Aqsa ahay yaa meeshaas aan ku waynay annagoo Al-Aqsa dhalinyar gududay waa kii saddexaad ay marayaan marka waa maqaadir Ilaahay ninkaas buloon buu ku dhintay alxamdulillah dhalinyaradan hadda waa ka sii daraysaa buloonti way sii xumaanaysaa 7 side 11 side iskuul ma jiro coronavirus baa jira la dhahay iskuulki ma jiro baashaas waa xoolo sheedaan wixii kale dhan waa la xiray baashaas waa la xiri lahay magacaygu waa CK waxaan kamid ahaa xarada qaxootiga xaga dheer ciyaartooyda ka dhiilaan qaasatan Safila FC hadda muddo ku dhan adi bil hadaysan gaarin 20 cisho garoomada weyn lama furin waxaan ugu wacneed dib horaa jiray oo in walaalkeena ku dhintay oo ayadoo mideeda qooyan oo halkeeda lagu jiro misaadana mid kale walaalkeena ku dhintay gooriyooday markaan anigana hadda waxaan dhaliilayaa si aad u dhaliilayaa xafiiska sportska inuu asaga dhibaatada joojin karo ayaga dhibaatada joojin karaan Bashiir Gaxnuug RTN Xariyaha Dhadhaab